gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Abuukar Jacfar ayaa dhaliyay barnaamijka kalamaan ee ka baxa radio kulmiye kale haddaan ku darsado wax yar kalamaan ay war ka soo diiso oo qosayo laamiyada markay soo diiso warkii saaxiibkay abaan goro isoo wacay war arrintan sameeyno arrin fiican imaarto wax aniga dawladda dhamaad aad wuxuu sheegayso inuu wax qabo weysay anigoo kamid ah inaan wax qabtaa sheegayso amaan uma arkaan aniga taas amaanna ma aha dawladda tan ay qabanaysa taas af gooni ay dhisaysa tan dayn la ay dhisaysa aniguna waxaan kamid ahay dawladda marka iga dhiganayra amaan in aniga dawladdiina aad tiraahdo xuma qaban karto adigana waxba qaban kartaa kaliya gudoomiyaha Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ku eedeeyay milkiilaha radio kulmiye Abwaan Guure in waa matashiil oo ka bacdi wuxuu ku soo xijiyay markii inuu war xumo badan soo daayo oo mid soo wareysto anigu meel iska joogo oo qof walba oo tago yiraahdo ana dayn la saana ka jirto xabsiga ku yar cusub oo la yiraahdo waxaas u bilaabo marka waxaas oo kale danaha uu leeyahay in saxaafadda loo adeegsado ma siyaasad oo si kale loo rabo moogta haddii uu si kale u rabo siyaasad iyo inuu dad wax ka sheego si daaragtii ha u aado arrintan ayaa imaanaysa kadib markii radio kulmiye ay wareysteen qaar ka mid ah dadka degan degmada Daynile oo cabasho ka gudbinaya gudoomiyaha ayaa arrintan iska fogeeyay wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Kujuufa dulqaad media